aan ku horeynay baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay codka kalsoonida siiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 17 bishan September. ra'iisul wasaaraha ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay inuu muhiimadda siin doono ay ka mid yihiin amniga, doorashada, dhaqaalaha, bixinta adeega garsoorka iyo qodobo kale. haddaba qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo bulshada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay howlaha horyaalla ra'iisul wasaaraha cusub muddada kooban ee uu haysto. wariyaha VOA-da Zainab Abuukar Maxamed ayaana aragtidooda weydiisay. waan Yacquub Ali Maxamed oo ka tirsan golaha shacabka. ra'iisul wasaaraha oo shalay kalsoonida baarlamaanka uu siiyay waqtiga harsan iyo inta qodobada uu sheegay oo asaga laadii uu maanta uu ku bilaabayo iskuma filna mana ku filna oo mana hagaajin karo mana samayn karo sidaas darteed marka waxay iska ahayd waa arrin guud qof kasta oo musharax ah uu soo jeedin lahaa uu soo jeediyay saas ay ila tahay marka sidaas darteeda waxaan ku talin lahaa haddii oo fursad uu u baahan yahay ra'iisul wasaaraha fursad baarlamaanka iyo xukuumadda in madaxweynaha kuma filna dalkan waa siyaasiyiin badan jirta maamul goboleedyada jira aragtooyinkaas haddaan si inclusive aan lagu dhigin ama heshiis aan lagu ahayn sharciyad lagu kordhin karo baarlamaanka kaligiis ma samayn karo marka sidaas waxay u baahan tahay si ra'iisul wasaare waqti uu helo waxa siduu waraaqdiisa uu ku sheegay wax heshiis lagu yahay oo waqti uu ku heli karo oo amniga iyo horumarka dhaqaalaha iyo oo dadka doorasho lagu qancin karo waa in waqti inclusive ama dibusdisid loo wada dhan yahay ودنيات السياسة يكون شيء أنت في فرصة كذا كذا. أول الله يبقى ما هذا الكلام مجاعيبه ونمضون بدل لانجرة والله يقرأ بدل شانه حسي قبل كبنات الدجن نمضون الله الصوماليات كاملة فكر في السؤال كان هدي عن كديته فرصة الدولة وعليه جلشوا أصبع وأشرب ليش كقول يوم أيوة أديك كوجال والديا ويرهلا حاجين كقول يا أشرب فرصة الدولة عيال يقطع على يرجع حكومة ده يصير وحرنا يعني لكن أنا وقضايا هان يستعدي أهان صوماليا dhaqanka iyada haddaan u fiiriyo arrintan 8 qodob oo baarlamaanka hortiisa ka balan qaaday ra'iisul wasaaraha cusub inuu baldaa 8 uu fuliye mid qura inuu ka fulin karin baan ugu aaminsanahay inuu waqti u helo oo chance u helo oo fursad loo siiyo mooyee sababtoo ah barkee 3 sano iyo bar yaa lagu gaarsiin waayay dalkii dhanna ragii joogay wax ku qaban waayay 4 bilood ninku waxba kuma qaban karo anuu taasaan aaminsanahay caleen inuu chance la siiyo chance kale uu ka faa'iideysto asaguna wixii uu markaas ilaahay waafajiyana uu qabto magacaygu waa Warsan Xasan Maxamed joogto magaalada Muqdisho waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta loo doortay wuxuu ku soo aaday waqti culus wuxuu ku soo aaday waqti kala guur ah waxa la gudboon ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta inuu ummadda Soomaaliya maanta dhibkay ku jirto oo ka sabata bixiyo inuu soo dhiso ra'iisul wasaaruhu xukuumad tayo leh oo dalka wax badan ka bedeli karta wax badan ka qaban karta xukuumad aan ahayn xukuumad la adeegsan kare xukuumad shicibka u adeegta inuu keeno ra'iisul wasaare waxaan kaloo ka codsanaynaa haddaanu nahay gabdhaha Soomaaliyeed annaga xuquuqdeena ma helno xuquuqdeena waa nagu tuntaa waxaan rabnaa maanta dawladdaada inaad siisid 30 xubnood gabdhaha Soomaaliyeed inaad nasiiso 10 wasiir inaad nasiiso 10 wasiir ku xigeen inaad nasiiso 10 wasiir dawlad gabdhuhu waa dad aan dalka dhibaatayn gabdhuhu waa dad wasaaradda ay qabtaan ama hay'adda ay qabtaan si qalbisadiga uga shaqeeya dalkooda aan dhibaatayn ra'iisul wasaare waxaan ka codsanaynaa fiiro dheeraad u yeelatay xukuumadda maanta aad soo dhisaysay inayna noqoto xukuumad tayo leh xukuumad tayo lehna waxa keeni kara markaad gabdhaha iyo ragga isu dheelitirtid wax wanaagsan baa ka soo baxaya xukuumaddaas bismillaahir rahmaanir rahiim marta magacaygu waa abwaan Cabdisalaam Axmed Gabayre abwaaninta Soomaaliyeed baan kamid ahay waxaan deganahay magaalada Muqdisho marka ra'iisul wasaaraha waxa horyaalla arrin culus Soomaalidana degdega lagu saliday degdega iska daayaan waxa la gaaray go'aan garba la qaaday gogol baa la dhigay ayagoo taas u fiirinaya horumarka wadanka iyo waxa dan noo ah waxaan leeyahay
ha loogu noqdo dib go'aankii la gaaray hal la kordhiyo xilliga wax lagu qaban karo ugu yaraan hal sano u yar xilli muuqaalka qofku xafiiska waxa ka jiray meesha horumarku gaartay meesha gaabisku ka jiray si ra'iisul wasaaruhu ogaado hal waqti lagu daran leh kulli dalka iyo dadka uu yaqaanaa nin Soomaali weeye dad la shaqeyn kara oo xilliga la jaan qaadi kara inuu soo magacaabo magacaygu waa Maxamed Nuur Maxamed kamida dadka degan magaalada Muqdisho waxaan qabaa anigu aragtidayda ra'iisul wasaaraha cusub inuu maaragtay xukuumadda uu soo dhigtay ay noqoto mid loo siman yahay cid walba ay iska dhex aragto siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafidka labadaba ay iska dhex arkaan oo qof walba ay ku jirto oo Soomaaliya u saman tahay si loogu kalsoonaado isagana ay ugu fududaato hawlihiisa shaqo oo hadda horyaalla xaalad adag waddanka ku jira waqtiguna waa maaragtay gaaban yahay marka sharafta iyo kalsoonida iyo sumcadda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya cusub hadda waxaa maaragtay aad iyo aad ugu wanaagsan inuu cid walba oo maaragtay ay maaragtay si degan oo sharaf leh wanaagsan oo maaragtay oo aan si gaar ah loo fiirinayn iyo waxyaalaha hadda dadku qabaan oo ah maaragtay in cid gaar iyo xoogaa xaggeeda u jiro inaysan meesha ka muuqan waxaa la yidhahdaa xasan maxamuud raagi magaalada muqdisho jooga ra'iisul wasaaraha cusub waxaan dhihi lahay waqti kooban lagu siiyey waxaan dhihi lahay waqtiga kooban ka faa'iideyso sameey nin dalka iyo dadka wax u qaban kara dad wax u qaban kara wiil iyo gabar ciday doontaan ha ahaadaane soo dhig xukuumad tayaay oo ka faa'iideysa karta bilaha yaro ku haay adoo u fiirin baarlamaan ku jira iyo wasiiro ahaan jira adoo u fiirin aniga taasi ila tahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar kamid ah bulshada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay waxa horyaalla ra'iisul wasaaraha cusub ee uu shalay baarlamaanka Soomaaliya kalsoonida siiyay.